gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Ceelafina gobolkaasi Sanaag Cabdicasiis Saleebaan Ismaaciil Xoogsade oo la hadlayay qaybo kamid ah warbaahinta ayaa xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyay sida ay hiiliyo hoobo la garab istaagtay nabadeyntii laga waday deegaanadaasi degmada Ceelafin sidoo kale gudoomiyaha Cabdicasiis waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay maadaama ay deegaanadaasi colaado fara badan ay ka dhaceen in deegaanadaasi hoos loo eego oo kuwan isaga arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya أنا قدوميها دقمة عيلة في حسب كلمية عبدالعزيز سلمان إسماعيل وعنا لكن سلام آدي أدو قيمة بدن وقدر إياه مدحونا تشبريد السومان لأن مدن المسبح عبدي لبضا قولا قران نقولها وسير هذا لما أنتو مدحنا قرأك تشبريد السومان لأن برتن سلام آدي أدو قيمة بدن وقدر إياه وده يبقوا ده شعب قرير السومان لأن سلام كبعدي دقمة عيلة فين وادو قيدين وحكا سعودي حالة نبت قليو nabadgelyada shir nabadgelyada ku saabsan baa ka socday shirkii meel fiican buu inoogu soo xirmay maalin dhaweeto aad iyo aadna watii saxaafadda looga sii daayay social media arrimihiisa iyo qodobadii ka soo baxay labada beeloodna meel aad iyo aad u fiican bay wax isla dhigeen waana heshiiyeen runtii markii hore faysaskii hore ee nabadeynta waxay ahayd in iyaga uun wax la dhex dhigo oo heshiisaad labada aan iyaga ka socon oo iyaga ka soo iba bixin in dusha laga keeno laakiin hadda way ka duwaneedo labada beelood iyaga meel isla fadhiistay ardaa wada fadhiistay arrimahoodii falanqeeyay nin walba wixii ku taagnaa ama ku bukay ama ku taagnaa ama dhibayay ka wada hadlay kana heshiiyey kabacdina ummadda reer Soomaaliland iyo xukuumadda la wadaagay arrintaas waa arrin aad iyo aad loo soo dhaweeyay bay noqotay oo guud ahaan degmada Ceelafin gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye daarahayna aad iyo aad loogu farxay runtii si gobonimo leh oo sharaf laba yeelan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa degmada Ceelafin ka shaqeynteeda tacab badan baa galay rafad badanna way keentay runtii waxaan aad iyo aad halkan ugu hambalyeeynaa dadaalka badan iyo tacabka badan oo geeyay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin waa wasiir aad iyo aad ugu xeel dheer dhanka ammaanka runtii qaabka uu wajahay nabadgelyada degmada Ceelafin وقاب آد ياد وحيل دير وآد كتوسع سخمرة دولية هاي أمانك يو أرما نبتقليد فرنتي وسيرك آد ياد بانقوم هنغينا كدقماهان أرماها يتعب كاو دقمة كقبتي سلو كلا وحا أرماها قعان طلبات اسناها وسيرك وشين تغركة حسن قافادي وحانا يسمعين ديال فربضان لمبر 1 ارتعالاد مركي ميل كدعدو أما أي عراد ميل كقرحدو haddii la dabin kari waayo waxa kale oo la qabtaa waxa weey in halka lagu xakameeyo colaadaas oo aan deegaamada kale dhul kale aan saameyn degmada Ceelafin saadun la socono colaadii ka socotay ma ay saameyn deegaamada kale sida degmada Garadag degmada Ceeri Gaabo iyo deegaamada kale waxa lagu xakameeyo lagu ururiyo degmada Ceelafin taas oo ay ku tusay xilleerida ay u leeyihiin wasiirka arrimaha gudaha u leeyahay arrimaha ammaanka runtii degmada Ceelafin iyo guud ahaan gobolka Sanaag waxa ka socda horumar ballaaran walow ay maartay turturooyin colaadada ay soo mareen haddana dhanka kale waxa ka socda maartay tartan horumarineed waan oran karayo waxa ay bafiru ahaa horumarka gobolka Sanaag wadada ballaaran ee Burco to Ergaabo degmada Ceelafin waxay soo martay marxalado badan oo maartay dib badan iyo waxyaalo badan colaadad bay soo martay bulshada hadda waxay u soo jeedaa inay ka shaqeyso arrimihii nabadgelyada sidoo kale arrimaha horumarinta inay ka shaqeyso dad badan boo dirtaba meeladii dib u furay oo soo noqday baa jira waxaan oran lahaa xukuumad ahaan bulshadii waajibkeedii way ka soo baxday inaynu inaguna kaalmayno oo wixii arrimaha asaasiga ah iyo MCH-yadii iskuulaadkii waxay ahayd oo dibadajin lagu sameeyo waayo nabadda iyo horumarku والله بشر إسكابة شعب واحد مدينه وبسلادين يكشقية نبتقليده حكومة هانا إن يجنا معتي يضل لجرش قي وفي عنتاي تجمد Ceelafin جودهان دتك كنا وحنوهم بليانية حكومة دويني هؤلاء بدنا مشاريع بدنا أي كعنت وجهيسو لونا رونان دونه واجبات كي يقول لي هنا إحنا نبتقليده أيوم بحبون كسر بحان لكن حكومة دودي وأنا لا شقينا ساعة ويصير كقرشين وكسر جدا تجمد إن شاء الله وتعب بدنا بقلنا دونا ويصير كهرماء بدون أمان كنت كرش عن دونا
farxad badan baan idii ogahay degmada Ceelaf Weyn. ومحمد سويت التلفزيون كقرأ كجمهورية الصوماليلان.